محمد عبد الوهاب كنت السلفيه تمشي وديتا لقى بحر نواقض الاسلام سمريا نواقض الاسلام سيدا نواقض واولا اي كتاب او عقيده او علماء النيو ورا كقرتها بجرو intaasoo imaam sagaalkaas imaamba way ka horeeyaan Muhammad ibn Abdul Wahhab way ka horeeyaan sagaal kubana waxay wax ka qoreen waxyaalaha diinta looga baxo marka Muhammad ibn Abdul Wahhab baa ugu horeeyay wax diinta waxyaalaha laga baxo wax ka qorid waxa ka hadha horta islaamka dhawaaqid laga baxo oo la taasiiliyo la tafsiiliyay annaka isku akhrino dadku waa saarnaade ninka naaqdada buu ka baxay kutubtaasi waxa ay ka hadlayaan laba qodob weey maxaa gaalnimo ah oo diinta looga baxaa iyo qofkii diinta ka baxay sidee loola tacaamulaya labada qodob ay ka hadlaan kan waa sahih al-bukhari asahhu kitabin ba'da kitabillahi azza wa jalla kana waa sahih muslim weeyaan kitaabka sahih muslimka markaynu dhex tagna asagana abwaabtiisa waxa kamid ah waa sunan abi daawud ويان أما السنن للإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى منهاجكي مشهور كأها الصومالي الدحدودة كان وشرحيسا كم إذا شرح أقوين أما مت كم إذا لبدا شرح أقوين ويان وشرحي ابن حجر الهيتمي سجى سجارة نسوق عطياه أئمة أينو تلمام الدونة باب كان سيدا جار كوحوا قرطي وحيالها الدين تلقى بحق جار كوقرطي إمام كان كم إذا رحمه الله تعالى ابن حجر الهيتمي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين موقال أسبوعا آذو قبصدي براه بالشدة موقال كاسو أها محمد عبد الوهاب كنت السلفيه حقا تمشي وديتا لقى بحر نواقض الاسلام سمريا نواقض الاسلام سيدا نواقض واولا اي كتاب او عقيده او علماء النيو ورا كقرتها بجرو islaamka dhawaaqid laga baxo oo la taasiiliyo la tafsiiliyay annaka isku akhrino dadku waa saarnaade ninka naaqdada buu ka baxay mujtamaca muslimka adduunka joogo dhanna haddaan kitaab ka saarno 90% ka baxay sharaacadii dabaqay marka adduunka islaamka dowladda ma dabaqo magaala bisawsilmaka okay wadaadkani sida uu sheegayo maqdaciisu laba qodob buu xambaarsan yahay ama muuqaalkiisu laba qodob buu xambaarsan yahay qodobka koobaad waa inuusan jirin sheekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ka hor in masaa'ilka diinta looga baxo lagu gaaloobo ridada nawaaqidul islaam qawaaqicul islaam waxyaalaha diinta laga baxo aysan jiri jirin in si tafsiil ah oo qodobaysan loo qoro Muhammad ibn Abdul Wahhab uu yahay cidii u horeysay oo kitaab noocaas qorta qodobka labaad ee muuqaalkiisu xambaarsan yahayna waa in qodobadaas Muhammad ibn Abdul Wahhab qoray ummadda 90% iyo wax la mid ah lagu gaalaysiinayo waxaynu leenahay waa dacwad iyo sheegasho aan waxba ka jirin weeye laba arimood mid buuna wadaadku sidaa u yiriyo imma an jahlin aw sangaranahayn baabkani islaamka meeshuu ka joogo iyo dawaawiinta islaamka meeshuu kaga qoran yahay iyo kutubta gaarka ah ee laga alifay tirada badan inuu sangaranahayn iyo inuu garanayo laakiin uu qarinayo wadana gaar ah oo isagu leeyahay oo isu diidsiinayo labada mid bay noqonaysaa sax miya inaan culimada muslimiintu qorin kutub ma jiraan Muhammad ibn Abdul Wahhab ka horeysay oo laga qoray baabka kan sidoo kale waxaynu tilmaamaynaa kutubta laga qoray marka laga yimaado baabkan inuu yahay baab dawaawiinta islaamka oo dhan ku qoran ridada iyo diinka buxu waa dambiga ugu weyn ee la galo weeyo qofku inuu diinta islaamka ka baxo oo diintiisi ka burto waa khatarta ugu weyn ee qof iska ilaaliyo weeyo macaasida iyo dunuubta waynu iska ilaalinaa laakiin macaasida iyo dunuubta waxa ka sii khatar badan kufriga iyo gaalnimada wal ciyaadu billah saddex imaam oo aimada muslimiinta kamid ah hadalkooda idin soo qaadaya mid waa imaamka weyn al-mujtahid Muhammad ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala imaam al-mufassirin kitaabkiisa tahdhib al-athar
ayaa wuxuu ku leeyahay 310 buu dhintay imaamkani raximahullahu tacaala wuxuu inna min almuslimiina man yakhruju min alislaami min qayri an yaqsida alkhuruuja minhu muslimiinta waxaa ka mid ah qaar laga yaabo inay diintii ka baxaan ayagoon ku talagelin inay diinta ka baxaan khatarta markaa diinka baxu leedahay ku tusinaysa xataa qofku mararka qaarkood isagoon islaahayn kufri baad ku dhacdo inuu kufriga gaalnimo ku dhaco sidoo kale alxaafid alkabiir abu cawaana saaxib almustakhraj calaa saxiixi muslim sida uu ka soo raray alxaafid ibnu xajar alcasqalaani fii fatxi ilbaari juska 12 safxada 301 ayaa wuxuu wafiihi xadiisku sharaxayay buu ka hadlay anna min almuslimiina man yakhruju min addiini min qayri an yaqsida alkhuruuja minhu xadiiska waxaa laga qaadanayaa laga fahmayaa inay suuragal tahay ama muslimiinta ay ka mid yihiin dad ka baxaya diinta min qayri an yaqsida alkhuruuja minhu isagoon u qasdin inuu diinta ka baxo wa min gayri an yakhtaara diinan calaa diin alislaam isagoon odhanin diin hebla oo aan diinta islaamka ahayn baan doortay ayaa laga inuu diintii ka baxo marka khatarta baabkani leeyahay ee keenaysa in la caddeeyo dawaawiinta islaamka lagu qoro kutub gaara laga alifo leeyahay waxyaalahan diinta lagaga baxaabay a'imadani tilmaamayaan gaar ahaan marka jahligu badan yahay dadka caamada in aad loogu caddeeyo la baro waxyaalaha diinta lagaga baxo oo loo akhriyo oo lagu celceliyo oo lagu wacdiyo waxaan soo qaadanayaa mid ka mid ah fuqahada shaafiiciyada ee mutaakhiriinta ah hadal uu leeyahay السيد البكري الدمياطي رحمه الله تعالى وإمام كان لكتاب كان إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين كتاب كاس إمام كلوي إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين كتاب كيساسا وحو كله هاي جزء أفراد صفحة بقول صدني صدح واعلم وحدقاتها أنه يجري على ألسنة العامة dadka caamada carabkooda waxaa ku socda oo ay ku hadlaan oo carabkooda ku dureersama jumlatun min anwaa'il kufri jumlo weyn iyo qayb weyn oo anwaacda gaalnimada ka mid ah min qayri an yaclamu annaha kadalika ayagoon garanahayn waxaanay ku hadlayaan inuu anwaacdii kufrigiyo gaalnimada yahay fayajibu calaa ahli lcilmi ahlulcilmiga waxaa waajib ku ah an yubayinuu lahum dalika inay arintaas caamada u caddeeyaan ayaa laga rabaa lacallahum yajtanibuunahu idaa calimuuhu waxaaba laga yaabaa markay ogaadaan waxaan inuu kufri iyo gaalnimo yahay inay ka fogaadaan lianlaa taxbata acmaaluhum saan camalkoodu u burin wayukhalladuu fii acdami alcadaabi wa ashaddi alciqaab oo aysan hadhowna ugu waarin cadaabkii weynaa iyo ciqaabkii weynaa aysan ugu waarin طيب markaasa wuxuu waa macrifatu dhalika amrun muhimun jiddan arintaasna waa arin muhiim ah weeyaan in alla ogaado wadhalika lianna man lam yacrif ash-sharra yaqa fiihi waayo qofkan sharka baranin oo waxan inuu gaalnimo diinka baxyahay aan baranin wuu ku dhacayaa طيب وهو لا يدري asagoon garanahayn buu ku dhacayaa wa kullu sharrin sababuhu al-jahl shar kastana sababtiisu waa jahli wa kullu khayrin sababuhu al-ilm خير كستنا سببتيسو waa cilmi weey طيب taas waa masalada xigta aynu soo gudubno hordhaca markaan ka nimaan hordhaca ujeedkan kale waxa weeye gaalnimada iyo waxyaalaha lagu gaaloobo in la qoro la cadeeyo dadka loo sheego la bayaaniyo muhiimadaas ay leedahay fuqahada iyo culimada muslimiintu tilmaamayaan qofkii asagoon ogeyn waxan inay gaalnimo tahay inuusan dalaq oranin طيب taas waa masalada labaad waxay jawaab u tahay qodobka ah lama alifin oo lama qorin kutub lama qorin gaalnimada iyo waxa lagu gaaloobo lagu faahfaahinayo lagaga hadlay taas waa been laba arimood waynu ku cadeynaa arinka qodobka koobaad الفقيه محمد ابن محمد الحسيني طيب الزبيدي مرتضى الزبيدي عنك كواه ayaa kitaabkiisa wuxuu yiri itxaafu saadati almuttaqiin بشرح إحياء علوم الدين ليلاهضو جزء الشناط صفحة 333 أيا وحيلي مركو ردة سو قاري وقد ألف فيها غير واحد من الأئمة من المذاهب الأربعة رسائل وأكثر في أحكامها مسألة الردة الدين كبحة وحيالها الدين تلقبحه
hal mid wax ka badan oo madaahibta afarta culimadeeda ka mid ah ayaa waxay ka qoreen kutub wa aktharu fi ahkaamiha ahkaamteedana aad bay u badiyeen oo u faahfaahiyeen oo u cadeeyeen xagaad ka keentay marka kutub lagama qorin taas markaynu ka nimaano haddana waxaynu leenahay laba heer aynu u qaybino hadalka wadaadka inaynu kuwa waafaqno nidhaahno aynu ka soo qaadno sidaad sheegatay inaan wax kitaababa laga qorin محمد بن عبد الوهاب هرتي haddaynu sidaa nidhaahno ma dembi bay noqonaysaa haddaan kitaab hore laga qorin in kitaab laga qoro maadaama masaladan ay tahay masalo majaamicda islaamka iyo kutubta fiqhiga iyo kutubta xadiiska iyo ummahatul cilmi oo dhan masalo ku taala qodobada diinta laga baxa ay ku yaalaan qofkii intuu ka soo ururiyo qoraay ma dambuhu dambigiisu muxuu yahay si kale haddaynu u dhigno bal aynu dhex tagno kutubta waaweyn ee cilmiga aynuna aragno diinka baxa iyo ridada sida looga hadlay waxaynu ugu horeysiinaynaa kutubta sunnada kan waa saxiix al-Bukhari asaxu kitaabin bacda kitaab Ilaahi azza wa jalla الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحي سوحو بابيستي باب يريه كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم وحقوق كتابي هاي إن لقد طوبت ضلبة كوي ردوبي وطوبت كينا اللي يراهدو إيا كوي معاندين تاها يلا دقالا كلا دقالمو باب كوهر ريانا وحو كدقاي أو أبوابتا كتاب كسوهو سقليساه باب إثم من أشرك بالله سبحانه وتعالى وعقوبته في الدنيا والآخرة قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وصحيح البخاري ويان طيب إذن مرتدين تيدين كبحة بخاري وأبابيستي كتاب كيسا صحيحة طيب وحالم ذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كنوا صحيح مسلم ويان كتاب كصحيح مسلم كأمر كانوا نحتاجنا أسجنا أبوابتيسا وحاكمت باب لي هذا باب حكم المحاربين والمرتدين حباب يهي حكم كمحاربين تأي مرتدين كو الدين إسلام ككبحي الدين تبنان كالنقضي أيو يري وكتاب كلابات وكتبت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد البخاري وقصر ريي وي كاني وسنن أبي داود ويان الجامع أمع السنن للإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى مركب بابيستي أول كتاب الحدود أما كتاب الحدود مركب بابيستي باب كوه الرأي مركو كتاب كدقتي مركو باب استباب كوه الرأي وحو كدقي باب الحكم في من ارتد وحو باب يهي حكم كلا حكمه قفك الردوبي الدين تكبحي يا حكم كيسا مركاسو الذي أحاديثتي أو سوء أرورية وكتاب كسدحاد وكتبت السنة كمدة وحالا من كتاب كالترمذي سنن الترمذي كان وشرح تحفة الأحوذي قال الله سعوده ويان أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو كتابيستي أبوابتي هو مركو سيقل باب كشان يلاباتناد باب كشان يلاباتناد وحيو بابيستي باب ما جاء في المرتد وحيو باب يهي وحيو كيمد قفك الردوبية الدين تكبحي وحيو كيمد أيو باب يهي وسنن الترمذي رحمه الله تعالى سنن النسائي وكتابك شناد كتب السنة كاملة الإمام النسائي رحمه الله تعالى أصنوح بابيستي باب كأورانا يا كتاب كجودة كتاب تحريم الدم ليجا يا حرام نمديس أيا وحو كل حكاية ضدك أيضا حرام تأهين ليجود إن مرتد كمدي هاي بكاس وحي أحكا الحكم في المرتد حكم كمرتد كأي حكم هاي يدين كبحر طيب كتابك شنادة قدام بيي كتابك اللي حال عنده كتب الأمهات الستة كتبت اللي هذا قدام بيي والسنن ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة أصغنا وحو بابيستي باب المرتد عن دينه
باب المرتد عن دينه وحو باب يهي قفكي كردوبي كبحي دين تكبحي باب كوخيغانا وحو كدغاي باب المرتد عن دينه هدنا ايو سو عليي مركله او لباد طيب كتبتي احاديث النبي عليه الصلاه والسلام امهات السته اهيد وتاسو waxay wada baabaysteen diin ka baxa iyo ahkaamta ku tacalluqda ayay baabaysteen طيب كتبta fiqiga markaynu aadno ayaguna waa saas oo kale hal kitaab baynu kaga koobsanaa waa minhaajkii mashhuurka ahaa Soomaalida dhexdooda kan waa sharaxiisa kamida sharaxa ugu weyn ama mid kamida labada sharax ee ugu waaweyn weeyaan waa sharaxi ibn Hajar al-Haytami isaga si gaar ah u soo qaatayo aimada aynu tilmaami doonay ee baabkan sida gaarka wax uga qortay waxyaalaha diinta laga baxo gaarka uga qortay imaamkana kamida rahimahullahu ta'ala ibn Hajar al-Haytami كتاب كمذا كتبت منهاجك أيا وحو يهي كتاب الردة ردة بو كتابها كتاب الردة هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر طيب وكي هذا إمام النووي رحمه الله تعالى أو استهزاء أو عنادا أو اعتقادا طيب كتبت الفقه مذهب كوردن هي مذاهب تكلم أساس كتاب الردة وكتاب كمذا كتبت أحكامت ee aimada muslimiintu ay ka hadlaan marka la joogo abwaabta xadiiska iyo marka la joogo abwaabta fiqiga labadaba tayib inta markaynu niraahno waxaynu kala tilmaami doonaa kutubtaasi waxa ay ka hadlayaan laba qodob weey maxaa gaalnimo ah oo diinta looga baxaa iyo qofkii diinta ka baxay sidee loola tacaamulaya labada qodob bay ka hadlaan ama aqlabka hadalkoodu wuxuu ku wareegaya waa labada qodob maxaa diinka bax ah kutubtana hada tilmaanay weey ama kutubta sunnada leh ama kutubta fiqiga ah ila fiqiga ahkaamti sunnada iyo kitaabka ku taalay baa lagu moogtay khulaaseeyo lagu qoray kutubtaas waxay ka hadlayaan waa laba qodob maxaa diinka bax ah oo diinta looga baxayo qofku ku ridoobayo islaamka banaanka kaga noqonaya iyo qofkii islaamka ka baxay diinta ka baxay see loola tacaamulaya طيب labadaas ka hadlaan inta markan kan imaano waxaynu dul maraynaa kutubta iyo muallafaadka sida gaarka ah looga qoray baabkan sida gaarka ah looga qoray kutub badan baa jirta laakiin waxaan isku dayayaa ilaa 9 kitaab oo kamida inaynu dul marno insha Allah ta'ala 9 ka kitaabo way ka horeeyaan Muhammad ibn Abdul Wahhab way ka horeeyaan waana fuqahadii madaahibta kala duwanay weeyaano ama Hanafiye leh ama Shaafiiciye leh ama غيرkood leh weeyaan طيب kitaabka u horeeya aynu soo qaadanayno tartiibka habkan u tartiibinaya ma aha si u kala horeeyeen xagga dhimashada al-imaamka u horeeyaan soo qaadanaya waa al-imaam Muhammad ibn Ismaaciil ibn Mahmoud al-mashhuur Badr al-Rashid al-Hanafi rahimahullahu ta'ala wuxuu dhintay 678 isagii Muhammad Abdul Wahhab inta u dhaxaysa 4 qarni ka badan ayuu ka horeeyaa Muhammad ibn Abdul Wahhab xagga dhimashada 678 buu dhintay wuxuu leeyahay kitaab leeyahay risaalatun fi alfaadhi al-kufri ayuu leeyahay waa risaalo weyn weeyaan taqriiban kitaabkaasi waxa taxqiijiyay abi mucaad ahmed shahaada al-hasani kitaabta aan sheegaya sagaalka ah sagaalkuba nawaaqidul islaamka Muhammad ibn Abdul Wahhab way ka weyn yihiin way ka faahfaahsan yihiin sagaalku way ka masaa'il badan yihiin sagaalkuba kufriyaadka ku yaalay 10 kan xabee Muhammad ibn Abdul Wahhab sheegay ka badan bay sheegeen bala socota ka badan bay sheegeen طيب كتابكاس waa kitaabkaas waana muhaqqaq waana mutadaawal weey matbuuca kitaabka xigaayi waa kitaabka uu qoray ama imaamka xigaayi waa imaamka leeyahay Badii'uddin al-Qazwini rahimahullahu ta'ala Ahmad ibn Abi Bakr ibn Abdul Wahhab al-Qazwini al-Hanafi wuxuu dhintay 620 ama 625 labada qowl baa jira 620 waqti hore weeye Muhammad ibn Abdul Wahhab marka loo fiiriyo aad uga horeeya waana imaam weyn oo aimada cilmiga kamida muallafaadkiisa waxa kamida kitaab leeyahay al-Jaami' al-Hariz al-Haawi li'ulumi kitab Allah al-Aziz ayaa kamida imaamkani laba kitaab u fanigan ku leeyahay ama kufriyaadka iyo waxyaalaha diinta laga baxo laba risaalo ka qoray kitaabka hore waa kitaab leeyahay alfaadul kufri alfaada iyo ereyada lagu gaaloobo ee diinta looga baxo isaguna waa matbuuc waxa taxqiijiyay محققي هوري أبي معاذ أحمد شحاد الحسني أي تحقيقي كتاب كلمات ليه هو كتاب لها الكلمات المكفرة
التي تجري على ألسنة العامة كلمات قال لماذا كان لغو قالوبه كو وريغه أما كو سو نقنقضة عربك ضدك عامة أيها هذا كتاب كيساس. طيب لبدا إمام سدح ذا كتاب إليه المركة بدبع لبا كتاب له بديع الدين إمام كهرنا كتاب إليه إمام هذا نسوق هذا كتاب كألفي والإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى إمامك كتاب كان شرح نووي أهين هدر تلماني اسكالهوية أعظم شرح على منهاج إمام النووي رحمه الله تعالى أما الثاني بعد الرمل نقرية لبدا قول بواجرانه. إمامك ابن حجر الهيتمي وإمامك عانك مذهبك شافعي متأخرين تودنا الرأس رقوا وحليه كتابك مشهور كالي الإعلام في قواطع الإسلام في ألفاظ الكفر معني سوامحي وإن لا إعلاميه قواطع ذا شرط إسلامك قواطع ذا إسلامك شرط وحيالا إسلام لماذا شراه يقفك إسلامك كلا قايان يقفك قالوا بيه أو في ألفاظ الكفر ألفاظ كفر كسابسا نسخ قاركود waxaa ku soo aroortay al-i'lam fi qawaati' al-islam min qawlin aw fi'lin aw niyatin aw ta'liq kufrin insaas kitabka ciwaankiisu yahay ayaa soo aroortay kitab mashhuura mutadaawal madbuuca dabcooyin badan oo kala duwan la waliba oo dabcooyinkiisa ay kamid tahay dabcada uu tahqiijiyay Muhammad Awaad al-Awaad iyo nusxa uu tahqiijiyay Abu Abdullah Muhammad ibn al-Afifi dhawaana waxaa taabacday baan filayaa طبعوين كميت كميت وان فيلي إني تنضم به تحقيق أبو عبد الله تهي وحا طابع ذي مكتبة دار المنهاج. إمام كشناد أو تأليف كله وحوي أحمد بن عبد الرزاق المغربي الرشيدي رشيدنا وحو كميت هاي فقهاء الشافعية المتأخرين وإمام كحاشية معروف كأكل نهاية المحتاج في شرح المنهاج لشمس الدين الرملي رحمه الله تعالى كن يسقاشن يلحدي بولنتي وحليه كتاب لها الإلمام بمسائل الإعلام بقواطع الإسلام تأليف مستقل معها وحو يمد كتابك ابن حجر الهيتمي يعني هذا رصاص شيخنا الإعلام بقواطع الإسلام ها كدبنا وحو كسبه التهذيب إيو تحشيو أيو كسبه صنوى مطبوع وواحد تحقيقي دكتور عبد النصير ابن أحمد الشافعي أيا تحقيقي كتاب حيقة وحويه أما إمامك حيقة وحكا قري قاسم بن صلاح الدين الخاني الحلبي أحد فقهاء الشافعية أيو أصغنا أها ابن الخان أيو عانكو يهي بقول إيو كن بقول إيو سقال كيبو دنتي. طيب ولي وكه الرياء أو محمد بن عبد الوهاب وكه الرياء رسالة وحليه لها رسالة في ألفاظ الكفر ينوى رسالة محققة مطبوعة وحا تحقيقية دكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس أي تحقيقية وحا كتاب كالتضبعات كتاب لي هذا أما إمامك قري وحوية تاج الدين أبي المعالي مسعود بن أحمد بن عبد العزيز أي أصونا وحكا قري بابك كان رسالة أيضا لها رسالة في ألفاظ الكفر أيو ليهاي أو تحقيقي إسلام محققي هراء محمد بن عبد الرحمن الخميس أو تحقيقي. إمام كحيقة أئمة وحكا قرطيه والشيخ الفقيه المحدث المقرئ نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان بن محمد القاري الهروي إعانك كؤه الملا علي قاري الملا علي القاري إمامك عانك كؤه ويسغال بقول إيوه صدن كيبو دا شيء كن يأفر طبانكينا ودنتي ولي وكهر يا محمد بن عبد الوهاب أصغنا تأليف كيسو مستقل معه وحو كله شرح في عن كتاب كي بدر الدين بدر الرشيد الحنفي كتاب كيسا إن أصهر مرني أيو كله انتاسو إمام سقال كاس إمام با ويكهر ريان محمد بن عبد الوهاب ويكهر ريان sagaal kubana waxay wax ka qoreen waxyaalaha diinta looga baxo marka maxamed abdi wahaab baa ugu horeeyay wax diinta waxyaalaha laga baxo wax ka qoray waxa ka hadho horta ha ka hadho tayib sagaalka imaamaynu tilmaanay sagaal kuba way ka horeeyeen maxamed ibn abdi wahaab sagaal kubana waxay wax ka qoreen waxyaalaha diinta laga baxo ay kutub ka alifeen oo ka qoreen
محمد بن عبد الوهاب طبعا kaga dhig marka hadaad rabtid طبعا kaga dhig hadaad rabtid طيب taas waa qodobka xigtayna baraarujina waxa weeye محمد بن عبد الوهاب نواقض أو قري iyo aimada kale nawaaqida ay qoreen labadaba kutubta marka la qoray aimadu ay kaga hadlayaan waxyaalaha diinta lagaga baxo waxyaalaha diinta lagaga baxay ka hadlayaan labada way isugu jiraan waxyaalo la isku waafaqsan yahay oo madaahibta fiqhiga iyo culimadu isku waafaqsan yihiin waxaan inuu naaqid min nawaaqid al-islaam yahay wax lagu ridoobo diinta lagaga baxa uu yahay iyo waxyaalo ay ku kala aragti duwan yihiin oo madaahibta qaarna ay qabaan waa lagu ridoobaa diinta lagaga baxaa qaarna ay qabaan aimada qaarkoodna ay qabaan diinta lagaga baxo hadii marka kutubta kitaab kamida aad dhex tagtid ama Ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab ha noqdo ama kitaab kale ha noqdee oo qodobada qaar kamida aad yahay kan madhab hebel baa qaba in lagaga baxo madhab hebelna ma qaba wax caadi weeye masaa'ilka cilmiga fiqiga bay kamid tahay halka marka laga fiiriyo oo marka masaa'ilkan diinta looga baxay waxna waa muttafaq la isku waafaqsan yahay waxna aimada iyo fuqahada qayb kamida baa qabtay inuu kufri iyo gaalnimo diinka bax yahay halka qaar kamidana laga yaabo inaysan kufri iyo gaalnimo gaarsiinahayn taas waa mas'alo weeye masalada kale muhiimka waxa weeye in masalada la taqriiriyo la yiraahdo waa kufri iyo gaalnimo iyo in qofka muayyanka ah iyo qaa'ifada muayyanka ah iyo kooxda muayyanka ah dusha laga saaro la yiraahdo waa gaaloobeen xukunka la saaro laba mas'alo kala duwan weeye waxa laga yaabaa laba qof oo isku waafaqsan mas'ala hebla inay kufri iyo gaalnimo tahay inay diinka bax tahay ayaa waxa laga yaabaa inay isku khilaafaan طائفة معينة يا شخص معين أو خلطكي كل عي أو كفري كل عي ما قالوا بيسمى قالوا بين معذور دار بيالنا يا بيسمى يالنا يو وكاسوا اللي فهم يسمى أيضا مثلا مهمة هو كشرتا أو إن بدن لا يسكو حاب قاعده وعيان خلاصته يسوكوبيد waxay tahay hadaynu xataa niraahno aimada muslimiintu gaar uma aysan qorin masaladaas la yiraahdo masalatu ridda iyo masalada ahkaamta kufriga gaal looma qon hadii la yiraahdo wax ay dhibaysaa ma jirto waa kuwan ummahatul islaam iyo ummahatu kutub ilm ayay ku qoran tahay isla markaabana taas waa ka soo qaad una xaqiiqadu waxay tahay masala laga hadlay laga faaruqay kutub laga qoray aimada muslimiintu alifeen kutubteedu taala weeye qofka inkirayna wuxuu u inkiray ama waa jahli u baahan yahay inuu kutubtaas iyo cilmiga ogaado ama waa cinaad iyo isdiidsiin iyo waxyaalaha wa naftiisa u gaara weeye wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh